بسم الله الرحمن الرحيم استاذku waa mahadsan yahay waxaan isugu nimid maanta inaan ka hadalno oo cambaareyno oo diidno tacadiyada u dambeeyay oo noocyo kala duwan isugu jira hor istaag leh xarig leh handadaad leh oo ka dhana xorriyadda warbaahinta iyo saxafiyiinta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka shaqeeya magaalada Muqdisho 23 bishan aan ku jirno magaalada Muqdisho saldhigga degmada Daynil waxaa lagu xiray saxafiga la yiraahdo Anas Maxamed Soomane oo u shaqeeya telefishinka Rays waxaana xarigiisa amray fuliyay afayeenka ciidanka booliiska Cabdi Fataax oo kaashanaya taliyaha saldhigga degmada Daynil sababta loo xiray wariye Anasna waxay tahay inuu ka soo warramay dhacdo xanuun leh oo qoys Soomaaliyeed laba ka mid ah gabdhahoodii ay waayeen oo booliiska ay u cawdeen oo ay sheegeen in ilmahoodii ay la yihiin halkii caawimaad ay heli lahaayeen qoyskaasi waxaa markii ugu horeysay afayeenkii booliiska uu xiray oo amray in la xiro wariyihii arrinta ka hadlay kadibna waxay handadaad ciidanka booliiska ugu dareen qoyskii dhibaatada ku dhacday oo labadii gabdhood ee dhibanayaashaha iyo aabahood oo la yiraahdo Cabdullaahi Cismaan Abkow la xiray taas waxay muujinaysaa booliiska Soomaaliya gaar ahaan kuwa magaalada Muqdisho inaanay shacabkan u haynin amni iyo nabadgelyo ee ay u hayaan kaliya handadaad iyo cagajugleen mana aha markii labaad oo dad muwaadiniin oo dhibanayaal ah oo warbaahintu dhibkooda ka hadashay inta warbaahintiina la weeraray dhibkiina dadkii muwaadiniinta ahaa dhibka gaarayna handadaad loogu daray waxaa ogtihiin dhacdada ka horreysay waxay ahayd tii ka dhacday degmada Howlwadaag oo qoys Soomaaliyeed oo burcad ay heshay hubaysan oo booliiska u dacwooday saxaafadii ka hadashayna la qabtay la xiray wariyaashii ka socda raadiyo Risaala qoyskii dhibaatada sheegtayna lagu qasbay inay mar kale hadlaan oo muuqaal laga duubo sidaas si lamid ayaa mar kale qoyska degmada Daynilana lagu sameeyay arrintaas aad iyo aad ay u xanuun badan tahay sababtoo ah waxay muujinaysaa in dadku ay hadda kadib ka carari doonaan inay cabasho keenaan oo ay dhib ka sheegtaan ay ka carari doonaan warbaahinta sababta loo beegsanayo waxay tahay in la aamusiyo oo aysan ka hadlin dhibaatada jirta xilli amni darrada ka jirta caasimadda ay sii badanayso dhacdada ku xigta waxay tahay maalintii shalay ee ahayd 27 bisha saxafiyiin ka socday warbaahinta kala duwan ee madaxa bannaan ayaa laga hor istaagay inay ka soo warramaan dhacdo ka dhacday degmada Dharkeenley halkaas oo la sheegay qarax inuu ka dhacay sida warbaahintu ay qortay saxafiyiintu meesha tagayna waxaa loo diiday inay ka soo warramaan ama dhacdadaas ay soo sheegaan sida xaqiiqda u jirto amarkaasna waxaa bixiyay oo hor istaaga ah booliiska degmada Dharkeenley waxaana goobta ku sugnaa taliyaha booliiska gobolka Banaadir Farxaan Qarole oo isagu bixiyay amarka sida xogta ku helnay hor istaaga saxafiyiinta lagu sameeyay horeyna aan u ogeyn tacadiyada isdaba joogga ah iyo dulmiga uu ku hayo saxafiyiinta Soomaaliyeed ee dalkan ka shaqeynaya muddada dheer waan cambaareynaa falalkaas labada ay isku xiga dhacdada ku xigta waxay tahay amar sharci darro ah oo aan la aqbali karin dhawaana aan maxkamadda maamulka aan horgeyn doono oo ka soo baxay afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya amarkaas wuxuu ku taariikhaysan yahay 23 bisha July wuxuuna sheegayaa in saxafiyiinta ka shaqeysa ama ka soo warranta howlgallada booliiska sharciga lala tiigsan doono haddii waxa booliisku ay rabaan waxaan ahayn ay soo tabiyaan oo ay ku jirto haddii ay soo tabiyaan burcadnimada iyo khaladaadka ay geysanayaan dadka hubaysan oo qaarkood dharka ciidanka wata qaarkoodna booliiska ama ciidanka amniga ka tirsan yihiin taas oo muujinaysa in la diidan yahay ama la rabo in la leexiyo in dadka Soomaaliyeed ay warbaahinta u soo gudbiso xogta dhabta ah iyo waxa dalka ka jira amarkaas soo baxay 23 waa amar sharci darro ah oo xaq darro ah cabashaan ka sameynay haddii tallaabo laga qaadi waayna dhammaan dhawaan annagoo ah ururada warbaahinta waxaan tegi doonaa maxkamadda waxaana kiis ku furi doonaa afayeenka ciidanka booliiska degdeg ayuuna kiiskaas dhawaan u bilaaban doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku baaqaynaa in laga laabto magaalada Baydhabo muddo 2 toddobaad waxaa ku xiran oo si weliba
sifa aan caddayn loo haystaa saxafi u shaqeeya warbaahinta arlaadi ee madaxa bannaan muqdisho ku taalla oo la yidhaahdo xasan cali daa'uud waxaan ku baaqaynaa in deg deg loo soo sii daayo waryahaas wuxuu ka mid ahaa saxafiyiinta ka soo horranta arrimaha xuquuqda aadanaha xarigiisu waa sharci darro horaan u sheegnay wuxuu u dhigmaa afduub sababtoo in maalin cad qofka waddada laga qabsado la xiro qoyskiisu aysan war ka hayn qareen uusan haysan sababta loo xirayna uusan garanayn waa xadgudub keliya xadgudub muwaadiniinta ka dhana ma ahane waa xadgudub xuquuqda aadanaha iyo shuruucda dalka iyo kuwa kale ee caalamiga ka dhana waxaan markaa dalbanayna in deg deg loo soo sii daayo gaar ahaan ciidanka nabad sugidda koonfur galbeed oo arrintaas geystay oo aan aaminsannahay inay waryahaas meel ku hayaan inay bannaanka keenaan caddaynna ka bixiyaan sababtay u xireen saraakiishii ka dambaysay xarigiisana lala xisaabtamo koonfur galbeed si gaara baryahan cadaadiska wariyaasha iyo warbaahinta waa soo badanayay waxaan ku baaqayn in arrintaas la joojiyo si gaara dowladda federaalka waxaan kusoo gabagabaynaynaa afhayeenka madaxtooyada soomaaliya oo baryahan shir jaahid qabanayay waa dhaqan fiican in wariyaasha la isugu yeero xog la siiyo oo xogtu ay dadweynuhu gaarto waa arrin fiican waan bogaadinaynaa hase yeeshee dhaqanka ah tahdiidka ku salaysan ee su-aal ku jawaabta ah ee ah in la isku dayay in damiirka saxafiyiinta lagu dhaawaco la isku dayay ama afhayeenka madaxtooyadu isu ekaysiinayo nin aqoon-yahan oo wax kasta yaqaano ka jawaabi kara waxaan dalbanaynaa in arrintaas ay joogsato saxafiyiintu waa muwaadiniin xuquuq leh waana in xuquuqdooda sida ay u leeyihiin loo dhowraa afhayeenka madaxtooyadu ma aha aqoon-yahan wax kasta yaqaana kiisaska qaarkood waxbuu ka og yahay kiisaska qaarkoodna ma oga sidaa darteed waa inuu xushaa mawduucyada uu ka jawaabayo uusan kuwoosan ka jawaabin isaga xaqu leh laakiin marna xaqu ma laha saxafi yimid madaxtooyada oo su-aal keenay inuu su-aashiisa uga jawaabo su-aal kale ama uu handadaad ku sameeyo ama uu isku dayo inuu bahdilaad ku sameeyo arrintaas waa dhaqan aan la aqbali karin warbaahinta soomaaliyeed haddii ay ku sii socotona waxaan diyaarin doonaa go-aan deg dega arrintaas tallaabo maarata looga qaado ay ku jirto in warbaahintu ay qaadacdo ama iska diiddo shirarka jaraa'ida madaxtooyada ama in warbaahintu ay go-aan ka qaadato shaksi ah afhayeenka madaxtooyada waa mahadsantihiin